ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geesiyaasha aan soo jeesan ee dartood dalkeena amniga u yahay cadowga shisheeyaha uu nooga baqo maanta waxay soo bandhigeen awood dhaafta waxaa muuqatay in ciidanka moraalkooda iyo hankooda uu ahaa mid aad u sareeya labisan oo mid kasta oo ka mid ah aysan wejigiisu ka muuqan daal iyo diif askari kasta oo halkaasi joogay ee ka turjumayay Soomaalinimada shaarka ama surwaalka uu xiran yahay waa uu feereysnaa kama muuqan dayac wejiyadoodana labeenta saaran qoraxda marka ay qabato dhaldhalaalkeeda indhaha ayay kaa qabanayaan qanacsanaanta ka muuqatay ciidamada waxay hoga tusaaleynaysaa sida uu madaxweyne Farmaajo uu ahmiyadda u siiyay ciidamada iyo qoysaskooda sida uu askarta uga ilaaliyay inay shiid iyo shaxaad ku noolaadaan taasi oo si kasta oo dood looga keenay hadda haddii dhabta laga hadlo aan la qarin karin sida ay gaarkiisa iskula helayaan sida ay u dhiifoon yihiin iyo sida ay ugu weyn tahay inay matalaan qaran ee qabiil aysan ahayn waxay cabsi iyo naxdin gelisay cid kasta oo dalkan inuu dego aan ogolayn qof kasta oo aan rabin in dowladnimadu horumarto Soomaaliyana ka baxdo qabiil iyo qabyaalad qarniyo badan dib u dhigay ciidankeena maanta bandhiga uu sameeyay ee uu u dabaaldegayo maalintiisa gaarka ah waxay dirtay laba fariin oo culus mid waxay xigta ugu dhibciyeen mucaaradka oo siyaasadeynaya ciidanka dowladdu dhistay iyo horumarka ay gaareen midda kalena waxa ay toos fariin ugu diraysay dalalka dariska nala ah sida Kenya iyo Ethiopia oo ay u sheegayeen ciidankeenu inaanay ku kadsoomin oo ninkii dalagsan inuu dooqayo doqontu muddo intiina sida fiican u daawatay gaarka militariga aan gaban waxaa huba in dareen Soomaalinimo aawadeed ay xaad u istaagtay Soomaaliya duruufo adag ayay soo martay ciidankuna wuxuu ahaa mid xaaladda uu ku sugnaa ay keentay in askartu dadka ay guryaha ugu daataan habeen iyo maalin dhacaan kufsadaan haweenka dilaan dadka shacabka ah iyagoo aan naxin balse hadda isbeddel weyn ayaa dhankaas ka muuqda ha noqoto isla xisaabtan ciidanka lagu sameeyo iyo in iyagii xuquuqdoodii la dhowro ciidanku waxay heleen tababaro dibadda ah oo aqoontooda sare loogu qaaday dhalinyaro ayaa fursad la siiyey iyadoo odayaal gaboobay oo itaal aan lahayn lagu sharfay inay jiifkooda lacagta ku qaataan keliyana caqli iyo talo ku biiriyaan jiilkan cusub ee aad maanta aragteen ee intiina badan ee Soomaalida ah inaad la dhacdeen sida ay u diyaarsan yihiin iyo sida ay u xoogan yihiin ay uga go'an tahay in dalkii ay u dhaafeen dhiigga ay u shubaan Farmaajo si kasta ha u ahaado qamarshiid xafiiska isku dhajinaya laakiin ciidamada kaalinta uu ka qaatay dad badan way ku amaaneen wayna muuqataa